qaar ka mid ah garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen taageero ballaaran u muujiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenkiisa kuwaasi oo sheegay in khilaafka kulmiye ay ka dambeeyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada kuwaasi oo bay yiraahdeen laalush qaatayaal waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo hanjabaado culusna u diray wasiiradaasi dhanka kale waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegeen in xisbiga kulmiye uu yahay kii uu shalay ka soo baxay isla markaasina u diray fariin ah inaanu haba yaraatee dhageysan dadkan aan dhiigooda iyo maalkooda toona u soo hurin xisbiga kulmiye waxaana hadaladoodii ka mid ahaa oo ah haweenkii xisbiga kulmiye u soo campaign gareyn jiray 10 sano xisbiga kulmiye jiray aan maalin fadhiisan walina sidii xisbiga kulmiye u taageersan waxa aanu taaganahay in xisbiga kulmiye ay ku jirto farshisheey lana doonayo in la baabi'iyo oo xisbiye kale loo adeegayo sababtoo ah waxa weeye gudoomiyaha iyo madaxweynaha oo saaxiiba oo mujaahidiina oo muddo dheer soo wada noolaa oo soo wada dhintay lama kala dhex galeen haddii aan farshisheey ku jirin haddii aanu nahay dumarkii kulmiye waxa aanu leenahay xisbiga dantiisa ha laga taliyo annagu haddii aanu nahay dadka xisbiga jooga inta xilalka ilaashanaysa mooyaane waxaanu taageersanahay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka waxaanu taageersanahay shirkii aanu ku qabanay Mansoor ee uu gacan taagnay gudoomiyaha Muuse Biixi waxa uu gacan taagay 1162 cod wuxuu ku fadhiyaa aqlabiyad wasiirada aan cid dooran ee gudoomiyuhu doortay ee meesha markay dhididkayagii xilka ku heleen gam waaye waalanayo fadhii maysaan idinkuna hadaad sidaa wadaan annagu haddii aanu nahay dumarka ku haray xarunta kulmiye halka aad shir ku qabsataan halkeedaan ku qabsanayna intaad urursataan inteedaan urursanayna waxaad ku dhawaaqdaan wixiisaan ku dhawaaqayna hal maalin ma fadhiisanayno sida ku bushaaraysta cid afranaysa mushaharada qaadataana fadhiisato xisbiga kulmiyana goob kastuu joogo gudoomiyihiisu waa Muuse Biixi Cabdi ku-xigeenkiisu waa Maxamed Kaahin Axmed cidda lacag qaadatay madaxtooyada looga yaranayay u taala 7 lacagood hadii la nasiiyana waxa aanu taaganahay xaruntii kulmiyana dhici maayo farta shisheeye ku jirtaana ka baxdo madaxweynuhuna ha ogaado inaanu kursiga fadhiyeyn hadduu xisbiga kulmiye dhaco waliba anigoo abahdii esanam siiraanya iyo Muuse way ismeeyeen laakiin Muuse aan taageersanay waayo cid laga tago raali buu ka ahaa haddana waa lagu soo doonto wasiir dhergayo dhowr guri dhistay baaba qodqod ayaaba maxay ahayd gujeynaya waxa aan leeyahay madaxweynaha ayaan horta la hadlayaa waxa weeyaan meeshan goobtan aanu taaganayno ka hadlaynay xafladda laga qabtay waa goobtii uu kursiga ka fuulay cidna kuma haysato laakiin waxaan la hadlayaa nimanka yaryar ee kursiga koray ee iskaga fadhiistay in cid ku haysan mujaahidiinta dalka u soo dhimatay ilaa 18 ilaa maanta inay guryahan ka soo dhaqaaqeen moodaya mana caayino xukuumadana ma caayino de ninka beer qota hadduu saan u beeran waayo isagay ka qaadhaa caayid waxba ma tarto aflagaadaduna waxba ma tarto xumaantuna waxba ma tarto ilaahay waxaan ka baryayaa oo ka rajaynayaa horta in ilaahay iskaaga waafaqsiyo wixiina soo maraynaanu ka maydhanina aanu ilaahay nagu soo celin laakiin dadka doonaya ee imika u diyaarka ah ee raba inay rabshadeeyaan waxaan u malaynayaa inaanay cid ku raacayn sidan anigu qabo aanay cid la soconayn waxaan la hadlayaa nimanka wasiirada xildhibaanada kursiga helay ee shicibkan bay ku heleen iyo dadkan iyo xaruntan kulmiyuun bay ka heleen Muuse Biixina waa kii shalay budka halka ku hor joogay markuu siidaayo korayay isna waa kii maqsinkan uu ku jiray maanta uu ka hadlayo leeyahay la soo xidha la baabiyo wax soconaysana maaha xukuumadana ay noogama tagto aflagaadana noogama tagto nabadgelyo iyo amaan iyo salaam waxaan ahayn laakiin waxaanu diidanahay cagmarinta hoose mudane madaxweyne waxaanu leenahay ilaali midnimada xisbiga ha eegin mudane madaxweyne ha eegin wasiir yar oo aad shalay dooratay oo adigu gacantaada ku soo saartay kelmadaha uu ku leeyahay mudane madaxweyne raali kama nihin haddaanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee ka tirsan xisbiga kulmiye anagoo taageeradayadu mar walba waxaan la garab taaganahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Maxamed Kaahin Axmed aad iyo aad baan u hambalyeynaya mujaahidiintana waxaan leeyahay noolaada haddii maanta ay maxay ahayd xisbiga kulmiye uu xumaado Soomaaliland baa xumaanaysa midada daabkeeda yaa haya Axmed Maxamed Silaanyo madaxweynaha soona maray wixii dhibaato soo gaadhay soo maray horta waa nasiib darro haddii ay dhacdo maanta nasiib darro weeyaan xabadii halkaana laga soo qabteen halkanaan maanta fadhina la yidhi kuma qabsan kartaan wax haddana hadday teedii timaado waa nasiib darro weyn
waxaan ku soo gabagabaynayaa gacantaaday maanta ku jirtaa Somaliland ama dumi oo taariikh xumi ha ka hadho ama dhiso quruxda imika lagu sheegayo ku dhamaystir ama dumiyo waxaad ka heshaad leedahay kulankani ay saaka iskugu yimaadeen qaar ka mid ah garabka haweenka xisbiga kulmiye ayaa kulamada gooni-goonida ah ay yeelanayaan labada garab oo u kala jabay xisbiga kulmiye taasi oo sababtay in wasiir ka mid ah wasiiradii xukuumadda haata talada haysa xisbiga kulmiye oo ku waayay xilkiisii waxaana maalinba maalinta ka dambeysay cirka isku sii shareeraysa khilaafka xooggan ee u dhaxeeya xisbiga kulmiye taasi oo ka dhalatay kadib markii xisbiga kulmiye isku mandhaafay cidda soo xilaysa guddiga fulinta ee 5 sano ee soo socda xisbigaasi haddii uu khilaafkani sii socdo ayaa waxa ay caqabad hor leh ku noqon kartaa sii jiritaanka xisbigaasi waa maxamed ismaaciil salaan telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel Hargeysa